shan gurigan habaryartii deelinta joogtay ay ku soo iideen deetana guriga markay galabnimadii carruurtii lasoo qaaday laba gaadhi baa carruurteeda soo kala qaaday ciyaalkaygu waa 13 bay ahaayeen inaan 14 baynan baa ka dhintay 13 kale ayaa bombay soo qaadeen oo halka yimid guriga ku soo iideen habaryartii haye marka guriga markay iideen galabnimadii bay soo noqdeen laba gaadhidaas soo kala qaadayay gaadhigii hore gaadhi dhaweeyaaba dalbadeen uu soo qaaday carruurtii inta kale qaybtii hadhay ayay inantuna soo qaadaysay marka gaadhi alaab u sidaa inanta u yimid oo alaab siinayay wadada ku siinayay ninkana najmo oo ahayd gabar da'yar ku sugan Hargeysa oo si arxan darro ah loogu dilay isla Hargeysa qaab caynkee ah ayaa loo dilay gabadhii aroosada ahayd ee xalay lagu dilay Hargeysa dhacdooyin argagax leh oo maalmihii u dambeysay ku soo noqnoqonayay caasimada Soomaaliland ee Hargeysa xogo iyo macluumaad sir ah oo ku saabsan qaabkii loo dilay gabadhan aroosada ah ee lagu magacaabo Najma ayaan idin soo gudbin doonaa iyo waliba sargaalkan waxa ku kalifay inuu dilo oo waliba baas ku tixo gaari ay wadatay fadlan daawada waxaan si qadarin iyo karaamo leh kaaga codsanaynaa inaan si wadajir ah ugu duceeyno gabadhan marxuumada ah ee Najma lagu magacaabo sidoo kalena waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka la gareysatay oo hesha Najma dad badan oo u duceeyo haddii aad nagu cusub tahayna waxaan si qadarin leh kaaga codsanaynaa inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe inoo saartid sababtoo ah dhiirigelinaya inoo tahay inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe inoo saartid sida caadada inoo ah mar waliba waxaan si karaamo qadarin iyo kalgacayl u soo dhaweynaa asxaabteena nagu cusub waxaanu leenahay asxaabay welcome to the club xalay oo ahayd habeenkii koobaad ee munaasabada ciidul fadriga dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda shacab weynaha Soomaaliland qaasatan dadka ku sugan Hargeysa waxay u dabaaldegayeen damaashaadka ciidul fadriga inta badan dadka Soomaaliland waxay isugu marxabeynayeen munaasabada ciidul fadriga waxaana wajiyadooda ka muuqday farxad iyo waliba damaashaad laakiin qoyska Najmo oo maalinta ciid ku sugnay farxad iyo waliba rayn habeennimadii xalayto waxay u ahayd habeen murugo iyo walwal maadaama gabadhoodii ay ugu jeclaayeen da'yartii ay aadka u daneynayeen oo si gardar ah ku dilay askari ka tirsan ciidamada Soomaaliland ismaandhaaf soo kala dhaxgalay marxuumada iyo waliba sargaalkan ka tirsan ciidamada Soomaaliland ayaa waxa uu adeegsaday sargaalkan awoodiisa waxa uu galay gurigiisa oo ay markii hore hortaagneed gabadhan lagu magacaabo Najmo waxa uu la soo baxay qori guriga u yaalay sida uu sheegay marxuumada aabaheed qoriga markii uu la soo baxay isla markiiba ma uusan isdhibin isla markiiba qorigii ammaanka ayuu ka furay waxa uu nool ku soo riday xabada maadaama gabadha ay wadatay gaari bensal ah uma aysan jeedin isla markiiba daaqada ayuu rasaas kala dhacay Najma ayaana dhawaan waxa lagu mehersaday Soomaaliland waxaana la filayay ciid kadib inay aroos dhigato laakiin teedii ayaa imaatay oo waxa ay sababsatay gacanta sargaalkan Najma ayaana maalmo qur ah waxa ay ku sugnayd Hargeysa oo ay degan tahay habaryarteed halkaasi ugu imaatay booqasho iyo inay kala qayb gasho damaashaadka ciida laakiin familkii quruxda badnaa ee farxadda ku wada jiray hal mar ayuu isbedelay maadaama laga togtay gabadhii ay ugu jeclaayeen dunida qoyska Najma ayaana mar qura waxa isbedelay farxadii iyo waliba damaashaadkii ciida maadaama laga dilay gabadhii ay aad ku jeclaayeen waa kan bal in la daawado waraysi uu bixiyay gabadha aabaheed ama Najma aabaheed adeer waxay u dhaheen shan gurigan habaryartii deelinta joogtay ay ku soo iideen deetana guriga markay galabnimadii carruurtii lasoo qaaday laba gaadhi baa carruurteeda soo kala qaaday ciyaalkaygu waa 13 bay ahaayeen inaan 14 baynan baa ka dhintay 13 kale ayaa bombay soo qaadeen oo halka yimid guriga ku soo iideen habaryartii haye marka guriga markay iideen galabnimadii bay soo noqdeen laba gaadhidaas soo kala qaadayay gaadhigii hore gaadhi dhaweeyaaba dalbadeen uu soo qaaday carruurtii inta kale qaybtii hadhay ayay inantuna soo qaadaysay marka gaadhi alaab u sidaa inanta u yimid oo alaab siinayay wadada ku siinayay ninkana guriga kaga soo baxay marka xaafadaha ka soo horjeeda ah deetana wuxuu guri ka dhaqaaq meesha sida laygu yidhi deetana wuu dhaafay gaadhigii alaabkan ka qaadan aba ku tiri wuu dhaafay deetana ugu soo noqday haddana qorigii guriga kala soo baxay deetana inantoo muraayadu dalacantaybu muraayada uga soo dhex dusiyey xabadda halkaa madaxay kaga dhacday ma garatay waan gartay marka sababta uu dilay maxay tahay wax alla sabab badheed ah aan ahayn uu dilay anagu ma garanayno uu kasi badheed buu dilay ka dhaqaaq meesha ayuu ku yidhi waxaa jiro muuqaal aan daawanay oo isagana muujinayay in aad leedahay askari buu ahaa ninkan wuxuuna u dilay hiilo uu u hiilinayo walaashii arrintaa maxaa ka jiro arrintaasina way jirtaa walaashii isaga iyo waxa wada hadlay inanta deetana oo ku tiriyaduna waxa ku tiri sidaas gurigan habaryarteed bay iska soo horjeedaan ka dhaqaaqbay ku tiriyaduna meesha gaadhiga mar dambe ma dhigi kartid ku tiriyaduna haye arrintu sidaas ahayd maalinta wiig bil ka horna
maalin xaafadda soo booqatay waxay ku tiri ma dhigi kartid guriga hortiisa gaadhiga oo maalintaana waa la kala kaxeeyo buuq bay ku furtay ma garanaysaa marka labada arrintaasina way jirtaa dee waa walaashii waa loo aanayn karaa laakiin dee kas buu horta u dilay dee waxba mardaan isla waa qiraal markhaatiyadiina waa inuu badheer u dilay inanta ku yidhi ka dhaqaaq wadada waa wadda bartankeed buu yidhi ka dhaqaaqo wadada dhakhtar ka timaadee maxkamadda qabata waan gartay marka adiga muuqaalkaaga waxaa ka muuqday inaad leedahay ninkan waa askari arrintaa ma inoo xaqiijin kartaa haa ninku waa askari sarkaala weeyaan oo gaashaanle sare sarkaal laygu sheegay inkastoo darajadiisa ana arag waa gaashaanle laygu yidhi gaashaanle ciidanka wuxuu ka tirsan yahay maxkamadda ciidanka qaranka looyar buu ka ahaa laygu yidhi arrintiis waa sidaa wuu xidhan yahay imika si ay dhidu ku jiraan marka najmo imse jir ayay ahayd najmo waxay dhalatay 2000 ayay dhalatay waxaana u shaqayn jirtay wasaaradda beeraha jumhuuriyadda somaliland bay ahaa xoghayn bay ka ahayd xafiiska wasaaradda beeraha qaybta beeraha agaasimaha beeraha iyo xoghayn u ahayd waaxda beeraha bil ka horna aroos bay ahayd nin baa guursaday aroos bay ku jirtay haddii sabab soo qalgashay bishan imika rabadaan bay soo laabatay rabadaan 10 markaasanta bay soo laabatay marka haatan waa la aasay lama aasin waxay imika ku jirtaa dhakhtarka qolka meydkay ku jirtaa waxaan ka codsanayaa in ma garanaysaa shareecada madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaan ka codsanayaa inuu sharciga i waafajiyo uu sharciga si waafaqsan ninkaa laygu guto sharciga loogu gudo taliya ciidanka qarankana waan u mahadnaqayaa taranka ciidanka bileyska isaguna si fiican bay hawshaa u gudeen iyo qolada amniga iyo waxaan u mahadnaqayaa ciidanka baadhista iyaguna si fiican u baadhay taliyahooda ayaan u mahadnaqayaa insha allah hawshana si fiican bay wadaan insha allah iyagana waxaan ka rajaynayaa insha allah in cadaalad ay inantaa waafajiyaan insha allah u naxariistay najmo waxa ay ahayd gabar da'yar mustaqbal ifayana ku leh gudaha somalilan waxa ayna rabtay inay dhowaan ku aqal gasho isla gudaha somalilan si kastaba ha ahaatee najmo maanta waxa ay nooga baahan tahay inaan ku garab istaagno duuco sidoo kalena waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka laagaraysid si ay najmo u hesho dad badan oo u duceeya najma 4 sano ee u dambeysay waxay u shaqaynaysay wasaaradda beeraha somalilan sida uu aabaheed u cadeeyay BBC-da uu siiyay waraysi waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena mar kale waxaan si karaamo iyo qadarin iyo kalgacayl kaaga codsanaynaa inaan si wada jir ah ugu duceyno walaashayn marxuumada najma sidoo kalena aad muuqaalka laagaraysid haddii aad nagu cusub tahayna waxaan si qadarin karaamo iyo kalgacayl kaaga codsanaynaa inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe inoo saartid sababtoo aad dhiirigelinayay inoo tahay inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe inoo saartid fi amaanillah qaaday ciyaalkaygu waa 13 bay ahaayeen inaan 14 bay nambaa ka dhawtay 13 kale ayaa bombay soo qaadeen oo halka yimid guriga ku soo iibeen habarteed haye marka guriga